munaasabadan lagu xusay kowda luuliyo oo ku beegan sanad guuradii 61aad markii ay xorriyadda qaateen gobolada Koonfureed iyo sidoo kale midowgii Soomaaliya ayaa lagu qabtay xalay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan galmudug saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Gaalkacyo dhammaan mas'uuliyiinta goobta ka hadlay ayaa bidhaamiyay muhiimadda muwaadiniinta Soomaaliyeed u leedahay kowda luuliyo maalinta qiimaha badan ina wax yar oo kooban aan ka xuso taariikhda ay leedahay calanka aan dugsanayno oo qof walba u muuqda xiran yahay ama boorka gadaasheeda ku yaala ka muuqda waa muhiim in la xusaa sidoo ku yimid ciidda iska lahayd iyo goortii la aqoonsaday iyo goortii ugu horeysay ee dhul Soomaaliyeed calanka laga mudo calanka markii ugu horeysay waxa hindisay aqoonyahan Soomaaliyeed oo la yiraahdo Maxamed Cawaale Liibaan ayaa calanka Soomaaliya naqshaday waa muhiim maanta kala in la xusaa oo loo mahadceliyaa markii ugu horeysay ee la soo bandhigay calanka Soomaaliya wuxuu ahaa qofkii dhalinyarada oo caawa dhiig Soomaalinimo ku jira oo u soo banaan baxay inuu caawa xuso kowda luuliyo oo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogan qof walba meesha uu joogo ka xusaayo dhalinyarada iyo maayarka reer Gaalkacyo caawa kooda xusayaan Gaalkacyo maxaa leena Soomaaliya ha noolaad soo qayb galay waxaan la qaybsanayaa farxadda aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa xafladan quruxda badan oo ka mahad celinayno oo lagu xusayo waxaan leenahay oo rabaa inaan uga faa'iideysto dadkii ku waxyeeloobay maayarka degmada Gaalkacyo ee galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa yiri Abdullahi Ciise Maxamed Ilaahay ha naxariisto hindisihii calanka Maxamed Cawaale Liibaan iyo dhammaan inta ka qayb qaatay waxaan leenahay Ilaahay ha naxariisto Ilaahay ha naxariisto Ilaahay ha naxariisto waxaan la kaga baahan yahay inaan ilaashano runtii waxaan filayaa caaway waxa su'aal weyn ee halka isweydiinta mudan tahay calankan yaa laga rabaa mas'uuliyadda ilaalintiisa intaan qiimaha badan dhalinyarada aqoonyahanka caawa 6 saac soo jeeda iyo inta kale banaanka jooga naladka aan looga baahay waan ognahay hadda mara madow aan lagu argagixinayo in lagu bedelo waa la diidan yahay mar kale wuxuu u baahan yahay in dib loo xoreeyo wasil iyo bacad weyne iyo dhibaatadii ka dhacday runtii Soomaaliya qaybad badan oo kamid intaas kadib ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo sidoo kale maayarka degmada Gaalkacyo ayaa saaray astaanta qaranka Soomaaliyeed ee buluuga ah beesha Cali Xaashi warbaahinta qaranka Gaalkacyo